Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan idin ahaantiinba idin rajeynayaa badqab, farxad iyo reynreyn. Waxaan idinku soo dhaweynayaa farxad, foolfurnaan iyo laabxaarni anigoo matalaya shabakadani milkaha badan ee ku sumtan Samadoor. Marka xigta, shabakadani ama kanaalkani waxaan isku weerarsanaynaa ama idinkula wadaagaynaa xigmado, sheekooyin iyo warbixino mug iyo miisaan badan oo huwan dhambaalo quseeya nolosha. Sidoo kale ku-xirnaanshiyaha kanaalkani ma noqon doono mid lumiya waqtigaaga bila faa'iido ee idinkii, balse waxaad ka daalacan doontaa murti, aqoon iyo waayo-aragnimo badan oo kaa saacidi doono hardanka aad ugu jirto ka gaaridda yoolkaaga, oo aad uga takhalusi karto hirarka adag ee ku gadaaman kuna guntan ka dhabaynta himiladaada iyo mihnadaada. Sidaa darteed hamoogaan oo ku soo biir shabakadani qiimaha badan oo subscribe garee kambaleelkana furo si aysan kuu dhaafin barnaamijyada aan halkan soo geli doono insha Allah. Waxaan idin leeyahay Ramadaan Mubaarak. Haddana ku soo dhawaada mowduuceeni maanta, xigmad iyo sheeko xalqadiisii koowaad. Xigmad iyo sheeko wuxuu noqon doonaa barnaamij tixana ah oo ka bixi doona kanaalkani insha Allah. Maantana waxaan ku dhigi doonaa oo soo qaadan doonaa laba sheeko oo cajiib ah iyo xigmadahooda. waxaana idin soo jeedi doono barnaamijkan anigoo ah Cabdullaahi Sheekh Xuseen oo ku magac dheer Baalbaalow. Sheekada koowaad ee maanta aan ku dhigi doono barnaamijkeena xigmad iyo sheeko waa Qofna ma liito. Daa'uus waa shimbirka keliya ee aan farxad haysan. Isagoo aad uga cabanayo codkiisa ayay dawaco waxay tiri, waa run, adiga ma haysi kartid, laakiin eeg sidaad u qurux badan tahay. Maya, qurux keliya maxay micno leedahay? Daa'uus ayaa ku cabtay. Isla markiiba shimbir aad u cod mac ayuu arkay. Eeg shimbirkaasi siduu u heesayo, yaa ka cod macaan. Dawaco ayaa la yaabtay siduu farxad u haysan, quruxdiisa uu inkirayo. Wax kasta waxay leeyihiin awoodooda gaarka ah. Tusaale, gorgorku wuxuu leeyahay awood, waana shimbirka ugu xoogan. Adiguna waxaad leedahay qurux, shimbirkaasina wuxuu leeyahay cod macaan. Xigmadda aan ka badan karno sheekadani, ma jiro qof liito, laakiin waxaa jiro qof aan aqoon halkuu ku fiican yahay. sheekadeena labaad ee maanta aan ku soo qaadan doono barnaamijkeena xigmad iyo sheeko waa Saaxiibka Xun. Beri baa waxaa wada noolay qoys uu aabbo u ahay oday caaqil ah. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu caruurtiisii isugu yeeray si uu ugu digo saaxiibka xun. Waana dheer kadib ayuu tusaale u soo qaatay. Mid ka mid ah caruurtiisa ayuu suuqa cambo ugu diray. Cambihii ayaa loo keenay, waxa uuna ku daray hal xabo oo jiran ama buka. Wuxuuna caruurtiisii ku yiri, meel ayaan ku ridi doonaa, kadib waxaan wada arki doonaa waxa dhaca. Salad ayuu ku riday. Maalmo kadib ayuu caruurtiisii ku yiri, saladii ii keena. Markii loo keena ayuu ku yiri, eeg waxa ku dhacay cambihii kale ee fiicnay. Waxaa qurmiyay hal xabo oo keliya oo horay u qurunsanay. Sidaas ayuu saaxiibka xunna noloshaada saameyn ugu yeelan karaa. Odagii caaqilka ahay ayaa caruurtiisii ugu mahmaahay, dariskaaga cadaan iyo madow intaan ka ahayn wuu ku qabadsiiya. Xigmadda aan ka baran karno sheekadani waa, saaxiibkaaga xun wuxuu kuu horseedaa mustaqbal liita. waxaa halkaasi inoogu eg barnaamijkeenii xigmad iyo sheeko xalqadiisii koowaad. La soco qaybta xigta insha Allah. fadlan haddii aad ka heshay barnaamijka xigmad iyo sheeko, like, saar, comment, share.